sawirka wuxuu ka hadlaa waxay tahay saddex marxaladood oo qofka insaanka uu marayo. marxaladda ugu horeysa waa marxaladda yani ugu wanaagsan uguna fiican oo noloshaada oo dhan aad ka faa'iideysan karto. marxaladda ugu horeysa waxay tahay waa xilli aad tahay qof maxay yidhahdaa dhalinyaro, waxaad haysataa waqti iyo energy balse ma haysatid wax lacag ah. marka waqtigaaga iyo enerjigaaga waxaa loo baahan yahay inaad ku bixiso wax ku anfacaya waxbarashadaadii, dadaalkaagii, enerjigaaga yani iyo waqtigaaga ha ku beeldareen waxyaalo maala yani ah. sidoo kale marxaladda xigta oo ah yani qof adult waxaa loo jeeda qof qaangaar ah, balse waxaan dhihi karnaa markan waxaa tahay qof gentleman ah, qof yani akhyaar ah oo la rabo in maxaa yiraahdaa si wanaagsan u shaqaysto. marxaladani waxaad haysataa waxay tahay money oo ah lacag, energy oo ah tamar, balse ma haysatid wax time ah yani waqti ma haysatid. waxaa tahay markaani qof gentleman ah oo akhyaar ah oo haysta lacagtii iyo enerjigii, balse ma haysatid wax waqti ah. marxaladda ugu dambeysa oo ah old waxaa loo jeeda waxay tahay qof da ah. marxaladani waa marxaladda ugu dambeysa ee noloshaada oo dhan. waxaad noqotay qof waayeel ah, waxaad haysataa time oo ah waqti, waxaad haysataa sidoo kale money oo ah lacag, balse ma haysatid wax energy ah. timekan waxaa loo baahan yahay inaad ugu faa'iideysto familkaaga, reerahaaga, in yani aad inta badan aad la joogto yani ayaga aad waqti siiso. sidoo kale ma haysatid wax energy ah yani enerjigii sidaadii hore yani noloshaada sida yani dambe aad ahayd had yani ma tihid sida dhalinyarimadaada oo kalento. waxaa laga yaabaa marka dhalinyaro ay ahayd meel walba yani ka boodi jirtay, inta ka bood yani meel walba aad si dhaqsi ah ku aadi jirtay, balse marxaladdan waxay tahay marxalad aad adiga si tartiib yani u soconayso. sidoo kale waxaad haysataa money oo ah lacag, waa marxaladda ugu dambeysa marxaladdaani. asalaamu calaykum. Bye.